Soomaaliya sanada ka hor waxaa la tijaabiyay mashruuc ay ku baxayso 5 milyan oo dollar waa fikirkii ugu horeeyay ee la doonayay in ilayska cadceedda looga faa'iideysto iyo dabaysha ee Soomaaliya mashruucan ayaa waxa uu yahay mid korontada laga dhalinayo ilayska cadceedda iyo dabaysha meel garowa galbeedkeeda ayaa lagu rakibay soolarada cadceedda dhaliya iyo waliba marwaxado waaweyn oo dabaysha ka dhalinaya korontada tan ayaa noqonaysa fikirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay ka faa'iideysanayso ilayska cadceedda iyo dabaysha wariyaha telefishinka RTN magaalada Garowe Cabdirasaaq Xasan Cabdi Juba oo deegaankaasi booqday ayaa warbixintan Garowe ka soo diray waa wax runtii aad loogu farxo horta in wax aan isku dayno anagoo muddada inta dheer leeg 27 sano baan u malaynayaa inaanu burbur ku jirnay awalna dawlad tayo badan dawladeedu hanti weyn leh ma ahayn intii ka dambeysay hadda waa dhibaatadaas nagu dhacday dalka iyagoo dal qani ah xoolo iyo bad iyo biri meel walba cashaanu ka nahay hodan baanan haddana runtii ka faa'iideysanin hawadaas ilaahayna siiyay oo quruxda badan oo qorraxda saacadan rabna aan helayna hawada rabna helayna ilaahay midoo noogu deeqa ay tahayna in laga faa'iideysto waa wax aad u fiican Soomaaliya waxa ka socda mashaariic horumarineed oo aan laga filan karin wadan aan wali ka soo kaban burburkii dawlad la'aanta shirkadda korontada Nexom oo ay ku bahoobeen ganacsatada Soomaaliyeed fadhigeeduna yahay Garowe caasimadda Puntland ayaa wadanka ka hirgelinaya mashruuc tamarta dabaysha laga dhalinayo koronto markii ugu horeysay Soomaaliya mashruucan ayaa qorshihiisu yahay sidii bulshadu ugu baraarugi lahayd isticmaalka tamarta kala duwan si loo gaaro horumar waana qorshe looga faa'iideysanayo tamarta dabiiciga ee dalka sidii loo heli lahaa koronto qiimo jaban loona ilaaliyo deegaanka mas'uuliyiinta shirkaddan ayaa sheegay in dib badan ay ka soo mareen hirgelinta mashruucan Garowe waxaan imi 92 waxa ka shidnaa afaryan mar oo dhowr meelood kala yaala qofkana waxa laga qaadi jiray xabadii laambada 2,000 shilin marka gurigaaga haday ku taalo 10 laambadood qofku wuxuu bixinayay 20,000 shilin oo waagaas dollarkuna wuxuu ahaa 2.7 meelaas waa almost $5 waa laga yaabaa inay markaa ku dhaweyd habeenkii inuu qofku bixiyo waxaanu isku daynay inaanu energy-gu inuu yahay wax laga maarmaan ah waxaanu magaalada keenay biyo koronto baraf iyo bulkeeti muddo kadib waxaanu aragnay baahida dimaandiga energy-gu inuu mar walba magaaladu sii dhisato culeyskiisa leeyahay isagaanu marka u sii leexnay wixii kale oo dhan waa ka baxan waxaan xasuustaa dadkii maalintaa 2 shilin $2,000 shilin laga qaadayay isagoo reedku yahay 2.6 oo habeenkii $5 ay ku tahay laga yaabo lacagta uu bixinayo habeen la loo ururin jiray marka saacada u rakibnay waan xasuustaa $12 ay barbu keenay ninkii laga qaadayay $5 ku soo 20,000 oo shilin habeenkii ninka bixin waan soo gaarsiinay inaan iraano dadka fixed rate-ka macnaha qofka isticmaalkiisu yar yahay waxaanu siinaynaa 0.9 oo kale aan 0.7 oo kale hadeer waxa la marinayaa 0.5 caawa dad badan oo customer ah boqolkiiba waxaan u malaynayaa 35 waa ka badan yihiin dadka less than 0.5 ah istaraatiijiyad badan bay marka soo martay waxaan soo shidnay motor 3 kilowatt inaan Garowe ku siino koronto waxaanu keenay 45 Garowe inaan ku shidno koronto waxaanu sheegnay 60 inaan keeno 60 kilowatt 45 kilowatt 120 kilowatt 200 kilowatt ilaa markii dambe la gaaray maanta oo marka laga reebo winka iyo solarka 6 megawatt waxa ah generator-ka yaala 6,000 oo kilowatt waxa generator-ka yaala marka lagu daro renewable energy-gana 1,750 kilowatt way inta taala warbixin gaaban ka sii mashruucan dabaysha magaalada Garowe oo ay fulinayso shirkadda Nexom oo aad wada taqaanaan shirkadda korontada magaalada siiso wuxuu ka kooban yahay wajigiisa koowaad 3 turbine oo midkiiba quwadiisa ay tahay 250 kilowatt dhererka turbine walbana waa 32 mitir oo uu koray macnaha inta uu koray macna 32 mitir waa turbine caadi ah oo adduunyada laga isticmaalo kuwa kamid ah
oo ku habboon sayidka hadduu ka saaran yahay iyadoo loo fiirinayo dabeesheeda. turbanka sidiisa wuxuu ka kooban yahay 3 qayb oo muhiim ah. qaybta oo mashiinku ku fadhiyo oo towerka la yiraahdo, qaybta kore oo la yiraahdo nasal, qayb kale oo bladeska macnaha qaybta wadnaha u ah, iyo qayb control system ah oo mashiinka hadba u hagto meesha uu ka helayo dabeesha. agaasimaha macadka cilmi baarista Puntland Sidra Guuleed Saalax Barre ayaa mashruucan ku tilmaamay mid faa'iido badan u leh bulshada wadankana wax weyn ku soo kordhinaya. waxa ila muuqata runtii barnaamijkan hadda ay sameeyeen Nexom oo mashruuca kan weyn oo ay dabeesha kaga dhalinayaan korontada horena ay ugu guuleysteen inay cadceed uga dhaliyaan koronto. runtii waxa ila muuqata inay guul aad iyo aad u weyn ay tahay. waxay muujinaysaa sida ay ganacsatada Soomaalidu ay hal abuur fiican oo markaa ka duwan waxyaalihii hore loogu xaman jiray oo ahaa inay kaliya isu koobaan ganacsiyo kooban oo raashinka iyo ku kooban iyo badeecooyinka caadiga ah, laakiin inay la yimaadaan hal abuur ganacsi ay aad ugu yaraan jirtay barigii hore. waxay moodaa hadda inay tusaale u tahay sida ay Nexom hadda ay bilowday inay keento hal abuur ganacsi oo fiican ummadana u keenaya faa'iidooyin degdeg ah. waxaan aaminsanahay barnaamijkan hadda hirgalay oo ay bilaabeen inay dabeeshii ka dhaliyaan koronto ka dhaliyaan oo waxyaalaha ilaahay uu ku manaystay wadankan bay ka mid tahay in cadceed joogto ah oo maaragtay aadan yani inta maalinta ku joogto aad ka faa'iideysan kartid, iyo dabayl joogto ah oo 12 biloodba aad ka heli kartid in si koronto joogto aad uga dhalisid. marka waxaan aaminsanahay barnaamijkan hadda ay sameeyeen inuu dhinacyo badan oo mujtamaca faa'iido u keenayo. marka koowaad dadkii danyarta ahaa waxay helayaan in marka ay barnaamijkan hirgalo hadda ay bilaabeen waxay hadda dhimeen qiimihii korontada markii ay keeneen cadceeda keeneen inay koronto ka dhaliyaan. kana waxaan rajaynaynaa hadda inay sii dhimi doonaan. taa marka waxay fududeynaysaa dadkii danyarta ahaa inay helaan koronto ay helaan, maxaa yeelay qiimo jaban baa lagu siinayaa. waxay kaloo faa'iido ugu yeelanaysaa dad badan oo Soomaali oo ganacsato ahaa ayaa waxay ku haminayeen inay waddanka warshada ka samaystaan. cilada u badan oo hortaagan waxay ahayd maxaa energy u noqonaya. mashruuca korontada looga dhalinayo dabaysha waxaa ku baxday lacag gaaraysa $5 milyan. shirkadda korontada ee Nexom ayaa noqonaysa shirkaddii ugu horeysay ee mashruucan tabarta dabaysha looga faa'iideysanayo ka hirgelinaysa Soomaaliya. dhammaadka mashruucan ayaa lagu taamayay in bulshadu ay hesho koronto raqiis ah dhammaanna laga wada faa'iideysto. Cabdirasaaq Jubba, RTN TV, Garowe.